السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا qiimaha qayaha badan soo dhawaada mar kale iyo xalaqo kale iyo barnaamijkeeni sidaad ku dooranaysaa takhasuskaada sidaad u dooranaysaa takhasuskaada xalaqooyinkii aan soo qaadanay xalaqadan waxay noqonaysaa xalaqadii 8aad oo aan uga hadlayno sidaad u dooranaysaa takhasuskaada waa ku dheeraaday inta xalaqaan diyaarin jirnay barnaamijyada aan ka diyaarinayna weli xalaqo 5 xaba ka badan ma soo marin laakiin runtii waxaan dareemayaa tajrubo aan soo maray asxaab badan ay la soo mareen ayaan rabaa inaysan dib u dhicin. aniga markaan jaamacadda dooranayay kulliyadda dhaqaalahan ka baxay alxamdulilah business administration-kan waa diyaariyey masterkii kulliyadda markaan dooranayay ma haysanin wax badan oo i caawin karo. waalidkii ila joogay markaasi aan la joogay oo wax ku baranayay waalidkayga aabbahay hooyaday allah yarxamhum jamiican. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم في فسيح جناته. لكن أبتغي أيان لنا ولا قريش وحكو برنايي runtii wax badan igamuusan dhihi karin takhasuska aan dooranay suuq ley u ahaa ganacsi uu ku jiray wuxuu un jeclaystay meeshaas inaan ka galo wuxuu igula taliyay inaan dhaqaalaha barto anigana laftayda maskaxdaydu weli waa ka guuxayay oo dhaqaalaha inaan barto damaceedu ugu jiray aadaan u jeclahay ganacsiga iyo waxyaabaha ku saabsan ka hadalkooda iyo ku dhex jirkooda alxamdulilah maantana waa ku shaqeeyaa kumana guul daraysanin intii aan soo bartay iyo inta aan ummadda kusoo kordhin karo waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inaan ummaddayda wax un kusoo kordhiyey oo nafci leh oo u hari doono ilaahay idankiis welina waa igu taagan yahay oo barnaamijkaas waa ku jiraa laakiin xaqiiqatan maalintaas haddii ay ii doori lahaayeen kulliyad aniga aan jecleen مثلا waxaa laga yaabaa iyaga maalintaas inay jeclaayeen inay dhakhtar aan noqdo waxaa laga yaabaa inay ila jeclaan lahaayeen inaan engineer noqdo laakiin aniga hobbigayga ma aha labadaba sidaa darteed aad aan u jeclahay runtii inaan dadka ay aad u hubiyaan intaysan jaamacadda gelin door waxyaabaha ay dooranayaan inay aad iskaga hubiyaan si ay hodhow iyagoo jecel wixii ay u bartaan iyagoo jecel ay ugu shaqeeyaan insha allahu tacaala ummaddana nafcigooda markaas u bato ay ka faa'iidayso. xalaqadan ugu dambeyso waxaan kusoo gabagabeynayaa si aad u dooratid jaamacadda aad doonaysid inaad dooratid si aad u dooratid takhasuska aad rabtid inaad dooratid waxaad marka hore si fiican aad ugu fikirtaa wuxuu yahay visionkaada. your vision and mission waa wax ugu muhiimsan. waa maxay aragtidaada mustaqbalka sawirka kuu sawiran ee mustaqbalka aad rabtid muxuu yahay guulaha inaad gaarto aad rabtid mustaqbalka muxuu yahay waa qodobka ugu muhiimsan yacni doonitaankaada taasuu ka dhalanaya taasuna waxay u baahan tahay dadaal fikir dheeraad ah inaad u fikirto u fariisatay u baahan tahay war anigu waxyaabaha oo visionkayga mustaqbalka maxay tahay waxyaabaha inaan gaaro aan rabo what I want to achieve maxaan rabaa inaan gaaro guulaha inaan gaaro aan rabo haddaad aragtid vision waxay ku saabsan tahay guulo success way macnaha guulaha inaan gaaro aan rabo waxaan rabaa inaan dhakhtar caano waddanka laga yaqaan inaan noqdo qoraa caano laga yaqaan inaan noqdo saxafi caalami oo la yaqaan inaan noqdaan rabaa tababare dunida laga yaqaan inaan noqdaan rabaa siyaasi dunida laga yaqaan inaan noqdaan rabaa muxuu ahaa dhaqaaliyahan la yaqaanaan la rabaan abukaata magac sumcad bulshada kule inaan noqdaan rabaa yacni inay wax un kugu jiraan waayo vision inaad leedahay wax inaad ka guulgaasho aragtid visionkaada waxaa ka mid noqon karo waddankan xaaladdu ku jira inaad wax ka bedeshid ama siyaasad ugu bedel
ama dhaqaalo ugu bedel ama muxuu ahaaye cilmi aqoon kalood baratay ugu bedel. siyaasaddu waxaa mar walba ugu soo celcelinaya waxaa waaye waa madaxii. anaga madaxaan ka jirannahay, ummadday madax ka jiran tahay wareer waa. haddii siyaasadda ay hagaagto ummadda waa hagaagay. sambolka turkida mar walba aan ku soo celinaya dad aan la shaqeeyey oo naqaano oo runtii aan wax badan ka fahansanahay waaye. yacni bini aadan waxay ahaayeen xadaarad leh 700 oo sano caalamul islaami soo maamulayay, laakiin markay madaxa ka jirideen dhulkay galeen. markii madaxii la daaweeyeyna meesha hadda ay joogaan ay gaareen, welina waa sii socdaan. anaga ilaahay subxaana wa tacaala noo fududeeyo, ilaahayna ha noo bixiyo hoggaan khayr qabo oo ummaddan anfaco, oo ummaddan mustaqbalkeedii horumarkeeda ka fikiro. dad khayr qabana allaha ku hareereeyo. inta badan qofka hadduu wanaagsan yahay waxaa ka muhiimsan dadka ku hareereysan, inkastoo saameyntiisana ay aada muhiim u tahay. bay-adu ku dhex jiro ayaa muhiim ah. hadduu qofka bay-a wasaq dhex taagan yahay maanta o dhan uu qabaysto wasaqdii lay kusii badanayso. laakiin haddii meel nadiif intuu tago kadibna biyo nadiif uu soo qaato waxa wuu isdhaqi karaa markaas. marka bay-ada ku hareereyso qofka, rasuulka alayhi salatu wasalam wuxuu yidhi bitaanatu shar bitaanatu lkhayr. yani qofka wanaagsan waxaa ku hareereysan dad ahlu khayr ah, qofka xunna waxaa ku hareereysan dad xuna ku hareereysan. marka dad wanaagsan allah noo bixiyo, dad wanaagsan allah ku hareereeyo. waa meesha ugu muhiimsan ee wax laga bedeli karo. laakiin dad badana laga yaabaa inaysanba siyaasadda damac kaga jirin, maba rabaanba. waxay leeyihiin siyaasi magacaasa nacayba. meelo badanaad ummadda ka anfici kartaa, adoo shaksigaadaad anfici kartaa, adiga oo group sameeyey oo team ahoo wada shaqaystay oo isku afkaar noqotay ayaad wax ka bedeli kartaa. marka wax bedelka aaday muhiim u tahay. laakiin visionkaada muxuu yahay, missionkaada muxuu yahay, risaaladaad u nooshahay adduunkan maxay tahay? yacni wax adiga aad rabtid inay adduunkani ka hergelaan oo aad farxad iyo reynreyn ku dareemaysa maxay tahay? risaaladaada inaad waddankaani ka saarto xaaladdu ku jiro, waddankaani inaad ka abuurto xaalad nabadgelyo, farxad, reynreyn ma tahay mise ma ah? yacni inaad marka hore visionkaada ka fikirto, missionkaada ka fikirto aaday muhiim u tahay. vision iyo mission si aad u fahanto waxaad u baahan tahay inaad samaysatid khudo ama qorshe inaad samaysta u baahan tahay. balan qorshaha shaksi adig ku ah inaad samaystaad u baahan tahay. aadaan ugu soo celcelinaa dhalinyarada. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala in arrintaas laga faa'iidaysto. aaday muhiim u tahay, waa la baraa, meelo badana laga baraa. youtube-yadaad ka helaysaa. personal strategic planning inaad samaysato aaday ku anfacaysaa. التخطيط الاستراتيجي الشخصي. دكتور محمد ميمون ninkii yaqaano carabiga ku fiican التخطيط الاستراتيجي الشخصي aad barnaamijkaas ugu xeel dheer yahay. dad fara badan oo muxuu ahaay wax ka diyaariyaa jiro. anaga Baghdad Online Academy ahaan cashiro badan aan ka diyaarinay, koorsooyin aan ka diyaarinay. koorsooyinka ay bixiso Baghdad Online Academy waxaa ka mid ah personal strategic planning ayaa ka mid ah, personal human development ayaa ka mid ah. marka insha allahu tacaala xalaqooyinkaas dad ka faa'iidaysan kartaan, iyadana waa idinkula talin lahaa. waayo noloshaada inaad qorshe u samayso waa waxa kuu fududaynaya inaad jaamacad sax dooratid, inaad kuliyad sax dooratid, inaad mustaqbalkaada noloshiisi aad ku noolaatid nolol aad qorshaysatay, guulo adiga shakhsiyadaada aad u gaartid, ummadaadana aad gaarsiisid ayaad heli doontaa insha allahu tacaala. marka xalaqadeenan waxaa weeyaan tii ugu dambeysay ee aan ugu hadlaynay sideed u dooranaysaa takhasuskaada. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay arkeen meelaha qaarkood waxaad ku arkaysaa in lagala hadlayo waxyaabo tafaasiil ah maskaxdaada ku saabsan. maxaad jeceshahay? waxyaabaha qofkaan uu jecel yahay inta laga wareysto kadibna talin laga siinayo. applicationo badanaa jiro. youtube-ka waa geli kartaa, google-ka caadi haddaad geliso waa helaysaa. yacni haddaad carabi ku gelisid, haddaad english ku gelisid, haddaad luqad kale ku gelisidba waxaad helaysaa applicationo oo su-aalo ku weydiinaya. su-aashaasaad ka jawaabaysaa, su-aal labaad, su-aal saddexaad, qaarkood 40 su-aalood ay ku weydiinayaan. markaas kadib waxay ku siinayaan tala bixin oo waxay ku leeyihiin adiga markaan fiirinay dareenkaada iyo qaabkaad u fikiraysa iyo qaabkaad macnaha wax u doonaysid waxaa kuu fiican takhasuska noocaas oo kale ah. marka taas tafaasiisheedii hadda aan wax ma galayno, laakiin waa waraarsan kartaan. intaan aan sheegnay haddii aan dabaqno waxaan aaminsanahay inaan in badan oo badan anagana isku soo kordhin karno, ummaddeena ku soo kordhin karno. aad ayaan idinkaga mahad celinayaa dhegeysigiina iyo la socoshadiina xalaqooyinkan. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad bulshada gaarsiisaan, u faa'iidaysaan. addaalu cala alkhayri ka faacilihi buu xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. lacag ma ahan, free waaye. anaga idinkaa idin soo gaarsiinay.
adankana insha allahu tacaala gaarsiiya inta kale ee ka faa'iidaysan doonto. Pagekeena Baghdad Online Academy ayaad ka helaysaan oo Facebooka, pagekeena sidoo kale Baghdad Online Academy YouTube-kana waa ka helaysaan insha allah. hadduu ilahay raado 8 xalaqo baa idin soo dhigi doona. aad mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.